baasaboorradii dilka waa qiso ku saabsan dembigii ay caddayntiisa daaha ka qaaday kamarada qarsoon ee ku rakibnayd madaarka magaalada Dubai iyo meelo kale oo ka tirsan dalka isutaga Imaaraadka Carabta. howlgalka dembiga lagu fuliyay waxaa ka qayb qaatay ugu yaraan 27 ruux oo sita baasaboorro foojari inkastoo aanay filaynin in cid ogaanayso falkooda isla markaana ay ka baxsan doonaan cadaaladda. dowladda Ingiriiskuna waxa ay caddaysay in Israel ay samaysay baasaboorro foojari ah oo British ah oo ay fulinta falkaasi u isticmaashay. haddaba maxay ahayd qisadaasi sidee bay ku bilaabantay? jawaabaha su'aalahani waxaynu kala soo dhex bixi doonaa barnaamijkeena. abaaro 2:55 daqiiqo oo duhurka dabadiisa ahayd 19 bishii January sanadka 2010 waxaa madaarka magaalada Dubai soo gaaray shakhsi ka soo kicitay magaalada Dimashq kaasoo ku safrayay magac been abuur ah kana taxadarayay inaan cidna ogaan inuu ku sugan yahay magaaladaasi. laakiin kamarada qarsoodiga ee madaarku waxay ahayd mid muuqaalkiisa qabatay xilligaasi. shakhsiga halkaas soo gaaray waxa uu ahaa Maxamuud Mabxuub oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Xamaas ee reer Falastiin, iyadoo Israa'iil dhankeeda ay Mr. Mabxuub ku eedeysay inuu yahay ninka soo iibiya gantaalaha Xamaas ka soo ridaan marinka Gaza ee lala beegsado meelo ka mid ah deegaanada ay Israa'iiliyiintu degan yihiin. Maxamed Mabxuub oo gaariga madaarka ka qaaday uu geeyay hoteelkii uu ku degayay ma ahayn mid rumaysnaa inuu muddo 5 saacadood oo kaliya naftiisa ku waayi doono. maalmo ka bacdi booliska magaalada Dubai waxay bilaabeen baaritaan ay ku doonayaan inay daaha qaadaan dambiilayaashii geystay falkaasi dilka. waxaana howlgal baadhiseed oo ku socda nidaam booliseed oo dhab ah kadib la ogaaday in 27 ruux oo sita baasaboorrada 4 waddan oo reer Yurub ah ay yihiin kuwii fuliyay faldambiyeedkii lagu dilay Maxamed Mabxuub, isla markaana ay hay'adda sirdoonka ee Israa'iil ee Mossad ay soo abaabushay howlgalkaasi. waa kan taliyaha booliska magaalada Dubai General Dahi Khalfan. لماذا يحاولون يعني أن يظهرون بأن هذه الجريمة ارتكبت من البريطانيين ومن الإيرلنديين ومن الإسرائيليين؟ ما أها مترته إن دمان ودمده أي دمبيلياشو باسابورده siteen ay isu kaashadeen in dalkayga ay dhibaato ka dhex sameeyaan, laakiin howlgalkan cidda fulisay way caddahay waana dalka Israa'iil. 12 ka mid ah baasaboorrada ay dambiilayaashu siteen waxaa lahaa dalka Ingiriiska, iyadoo dadka sitay baasaboorradaasina ay dhammaantood ku dhasheen gudaha Britain laakiin ay ku noolaadeen dalka Israa'iil. Paul Kelly oo ah muwaadin British oo degan dalka Israa'iil waxa uu ka mid yahay dadka baasaboorrada la foojariyay lahaa laguna fuliyay howlgalka dilka ah ee Maxamuud Mabxuub. waxa uu sheegay inuu aad u naxay markii magaciisa oo ay raadinayaan booliska caalamiga ah oo ku arkay liiska dadka Interpolku ay daba socdaan. aad baan runtii u naxay ugana warwaray noloshayda. waxa la xaday aqoonsigaygii laguna galay dembi dil ah. in qof aqoonsigiisa la xado waa shay aan bannaanayn, waxaase jirta inay tahay arrin weligeed soo dhacaysay. wixii xilligaa ka dambeeyay waxaa saaxadda ka qarsoomay dadkii asalka u lahaa baasaboorrada la foojariyay xilli aanay Israa'iil dhankeeda sheeganin howlgalkaasi, sidoo kalena aanay dafirin. waa kan wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Mr. Lieberman oo suxufiyiintu wax ka weydiiyeen arrintaas. waxaan filayaa inaad in badan daawateen filimaanta James Bond. waxaan idinku dhiirigelinayaa sii daawashada filimaanta noocaas ah. isla maalintii uu Maxamuud Mabxuub soo gaaray magaalada Dubai waxaa kaloo halkaas soo gaaray xubno ka mid ah 27 shakhsi ee falka fulintiisa u xil saarnaa. 6 ka mid ah xubnahaasi waxay la socdeen diyaarad laga leeyahay dalka Imaaraadka oo ka soo duushay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. kamarada qarsoodiga ee madaarkuna waxay qabatay 2 ka mid ah 6 xubnood oo ka soo gudbaya goobta checking-ka, kuwaasoo sitay baasaboorro British ah oo macmal ah, iyadoo ay si kadisa isaga daba imanayeen dambiilayaashu kuna ballamayeen goobaha waaweyn ee magaaladaasi sida hoteelka 5 star oo ay degeen. inkastoo aanay xilliga garanayn halka uu rasmi ahaan degan yahay qofka ay raadkiisa ku joogaan ee ay dilkiisa u yimaadeen. kamarada qarsoodiga ee mid ka mid ah hodheelada waaweyn ee ku bahoobay magaca 5 star hotel ee magaaladaasi ku rakibnayd
waxay qabatay haweeney sidatay baasaboorka dalka Ireland oo degaysay hoteelka magaceedana ku sheegtay Gail Follard taasoo qolkii ay hoteelka ka digtay u isticmaashay sidii xarun dhexe oo ay ka hagayso howlgalkii socday. saacadihii ku xigay kamarada qarsoodigii waxay qabatay mid ka mid ah kooxda dambiilayaasha ah oo soo galaya hoteelkaasi halka sidoo kalena ay isla kamaradaasi laga helay muuqaal muujinayay Mrs Gail Follard oo ka sii baxaysa hoteelka iyadoo sidatay kiishash kala duwan. goor dambana la arkay iyadoo si degdeg ah u gashay meel suuli ah oo hoteelka la leeyahay si ay maryaha u bedelato oo isu qariso. sawirkaasi oo isna laga helay kamarad kale oo qarsoodi ah oo hoteelkan kale ku rakibnay taasoo fashilisay timo buruko ah oo ay soo xiratay intii ay suuliga ku jirtay. xilli oo ninka labaad ee kooxda ka mid ahna isla goobta ku soo xidhay timo artificial ah iyo waliba muraayadaha indhaha oo uusan markii hore xidhnayn. markii maxamuud mabxuux ka soo degayay madaarka magaalada Dubai waxaa la arkayay nin telefoon wata oo agtiisa maraya kaasoo markii dambe baaritaanka ay boolisku sameeyeen lagu ogaaday inuu ka mid ahaa dambiilayaasha isla markaana ilaalo ka hayay xilliga uu soo degayo sarkaalka ka tirsan ururka Xamaas. waxaana la daba socday ilaa hoteelka uu degay ee Bustana Rotana oo aan sidaasi uga sii durugsanayn gegida dayuuradaha ee magaalada Dubai. sanad ka hor xilligii la dilay maxamuud mabxuux waxa uu waraysi siiyay telefishinka af Carabeedka ku hadlaya Al Jazeera isagoo xilligii wajigiisu daboolnaa maadaama uu si aad u ogaa colaadda kala dhaxaysa ciidanka Israa'iil. يسموني ثعلب أنا الحمد لله يعني حركتي وأمني الشخصي ما بغفل ولو دقيقة حتى وأنا معك هنا يعني الحمد لله عندي حس أمني قوي جدا. khubarada dhinaca ammaanka ee bariga dhexe waxay isku raaceen inuu dilkiisa ka hor uu isagu galay khaladaad ku saabsanaa dhinaca ammaankiisa. waa kan Mustafa Calani oo khabiir ka tirsan macadka baaritaanka ee gobolka Khaliijka. ارتكب غلطة كبيرة بحجزه تذكرة سفر عبر الانترنت. waxa uu khalad weyn ku galay inuu tigidhka safarkiisa ku dalbado internetka. Israa'iiliyiintuna waxay si joogto ah ula socdeen dhaqdhaqaaqiisa internetka. khaladka kale ee uu galayna waxay ahayd in aanu haba yaraatee wadanin qof ilaalo ah. markii uu maxamuud mabxuux soo gaaray hoteelka Bustana Rotana waxa uu gudbay maqsinkii uu ka deganaa oo nambarkiisu ahaa 230. waxaase meesha uga sii horreeyay xubno ka mid ahaa dambiilayaasha kuwaasoo laba ka mid ah oo iska dhigayay ciyaartooyda tenniska ay la raaceen wiishka si ay u xaqiijiyaan qolka uu degan yahay. muuqaaladii laga helay kamarada qarsoodigii waxay muujiyeen in mid ka mid ah dambiilayaashu uu kireystay maqsinka ka soo horjeeda qolka uu deganaa maxamuud mabxuux. markii uu suuqa u dhaadhacayna waxaa dambiilayaasha u suura gashay inay qolkiisa ku rakibtaan qalab ay kula socon doonaan dhaqdhaqaaqiisa. haddaba intaynaan u gelin wixii intaa ka bacdi dhacay su-aasha la isweydiin karo ayaa waxay tahay maxay Israa'iiliyiintu culayska intaa leeg ugu maraya dilka maxamed mabxuux. su-aasha jawaabteeda waxaynu u tegaynaa halkan dalka Israa'iil. muddo haatan laga joogo 20 sannadood ayaa maxamuud mabxuux waxa uu halkan koonfurta dalka Israa'iil ku dilay 2 askari oo Israa'iiliyiin ah sida uu isaguba ku qaray qayb ka mid ah waraysigii uu sanadkii 2009 siiyay telefishinka Al Jazeera. Master mabxuux waxa uu ku dhashay marinka Gaza halkaas oo ah deegaan ay xukunto xarakada Xamaas oo colaad qoto dheer kala dhaxayso dowladda Israa'iil. maxamed mabxuuxna uu ka mid yahay garabkeeda military. waxaynu gudaha u galaynaa guriga ay ku nool yihiin labada waalid ee dhalay Master mabxuux si ay inoogaga qisoodaan sida ay u arkaan dilkaasi qorshaysan ee wiilkooda lagu filiyay. waa kan aabe Cabdirauuf mabxuux iyo hooyo Faatima oo dhalay ninkan aynu qisada dilkiisa ka hadlayno. تلقينا الخبر احنا يعني متوقعين احنا بدك الصحيح احنا متوقعين الاغتيال هذا زمان متوقعين الاثنين. waxaan ahaa nin filayay dilka wiilkiisa waan ogaa inay Israa'iiliyiintu raadkiisa ku joogeen muddo 22 sannadood ah. ma aha kaliya dilkii uu geystay 2 askari oo reer Israa'iiliya waxay sirdoonka Israa'iil muddada dheer u daba socdeen maxamed mabxuux. laakiin waxa kaloo ay ku eedeynayaan in uu Suuriya ka soo iibin jiray gantaalaha dhulka laga rido ee dhulka wax ka baabi'iya isla markaana keeno marinka Gaza. gantaalahaasi oo ururka Xamaas ay ku soo tuuraan deegaanada ay Israa'iiliyiintu degan yihiin halka sidoo kalena ay ku sifeeyeen nin xiriir dhow la leh jamhuuriyadda Iiraan. waa kan Rami Igra
oo ka mid ahaan jiray saraakiisha sare ee hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. mabxuux waan ogaa inay Israa'iiliyiintu raadkiisa ku joogeen muddo 22 sannadood ah. mabxuux waxaan u lahaa aqoon durugsan, wuxuu ahaa nin dambiyo badan naga galay. bal waxaad eegtaa gantaalaha uu qase ku soo daldalay, bal waxaad kaloo eegtaa sawaariikhda had iyo jeer lagu soo weerarayo deegaanada dadka rayidka ahi degan yihiin ee gudaha Israa'iil. dunida nolosheeduna waxay noo wanaagsanaan lahayd iyada oo aanu joogin master mabxuux. gudoomiyaha xafiiska siyaasadda xarakada Xamaas Khalid Mashcal oo ka mid ahaa raggii ay muddada soo wada shaqeeyeen ayaa ka hadlay dilka maxamed mabxuux iyo eedeymaha Israa'iil u jeedisayba. هذا قصة إيران هذه كلها اتهامات إسرائيلية. الأخ الشهيد محمود المبحوح باختصار كان يدعم المقاومة بكل أشكال الدعم، وهذا هو اختصاص أرنت كصابسن إيران ويديمو إسرائيل إسكشيكتي، لكن أرنت كصابسن شقدي وكهي وإسكعابنت يهلجن كومدن وضو وحي هيد مدو تاجر بلارك جيسن شري، وأنا واجباتك أوجارك عقربك ميليتري أوركا وحنا يهدي شقديسة يدو وح تفاصيله أو دراده لسيجلين وترتيباته. sida ay booliska dalka Imaaraadku sheegeen waxa hubaal ah in ay cidda dishay master mabxuux ay taageero ka heshay garabka, iyadoo kamarada qarsoodiga ee madaarka Dubai ay ka shaftay nin dhalinyaro ah oo Falastiini ah oo kooxda dambiilayaasha kula kulmay garoonka diyaaradaha dhexdiisa. waxaana la aaminsan yahay in shakhsiga Falastiiniga ee xilliga dambiilayaasha siiyay macluumaad ku saabsan maxamed mabxuux, taasoo la kulay khilaafaadka daaqiliga ah ee dhinacyada Falastiiniyiinta u dhaxeeyay. xilligaas ururka Xamaas oo laga baabiyay xukuumaddii ay hogaaminayeen ee shacabku soo doortay ay marinka qase xoog kaga saareen dhaqdhaqaaqa Fatah. in badan oo ka mid ah dadka la socda arrimaha gobolkaasina ay aaminsan yihiin in khilaafaadkii xilligaa u dhaxeeyay Fatah iyo Xamaas uu qayb ka qaatay dilka maxamed mabxuux, iyadoo goor dambana booliska magaalada Dubai ay xukun ku rideen 2 Falastiiniin oo ay ku eedeeyeen inuu taageero ka geysteen dilkiisa. Xamaas 13 ka mid ah kooxda dilayaasha ayaa isugu yimid hotelka Bustana Rotana iyagoo sugaya ka soo noqoshada suuqa ee maxamed mabxuux. xubnaha qaarkood waxay ku sugayeen qolka hore ee soo dhaweynta, kuwa kalena waxaa lagu diyaariyay dabaqa labaad ee hotelka. waxyar kadibna waxaa soo gashay haweeneydii kooxdan ka midka ahayd iyadoo si degdeg ah ugu gudubtay maqsinka ay deganeed ee nambar 237. muddo ka bacdina waxaa soo galay hotelka 2 nin oo kale oo ka mid ah kooxda wax dilaysay, kuwaasoo sitay alaabooyin kala duwan, lana aaminsan yahay inay yihiin 2 nin ee gacanta dilka lahaa, madaxoodana ku daboolay koofiyadaha kala baxa oo ay wejiyadooda ku qarin karayeen. xilligaana dhammaan kooxda dilayaashii waxay ahaayeen kuwo qayb waliba ku sugnayd meeshii ay ilaalada iyo operation-ka ka qaabilsanayd. haddaba sideeba Israa'iiliyiintu ugu talagaleen in howlgalkaasi noqdo mid ciddii fulisay aan la ogaanin, iyagoo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 27 qof. master Mishka bin David wuxuu muddo 10 sano ahaan jiray madaxii howlgallada ee hay'adda sirdoonka ee Mossad. khibradda aan shaqada u leeyahay markaan eego waxay ahayd in howlgalka loo diro dad aan ka badnayn 4 qof. sababta fashilatay howlwadeennaduna waxay noqon kartaa tirada dadka badan ee ay isku raaceen. Mustafa Alani oo ah khabiir ka tirsan macadka baaritaanka ee gobolka Khaliijka ayaa isagu waxa uu qabaa fikirka ka duwan. tirada badan ee howlwadeennada ah ee gaari kara 10 ilaa 15 oo loo diro goobta falku ka dhacayo waa nooc ka mid ah caalamka basaasnimada iyo fulinta howlgallada qarsoodiga ah. waxaana isku qaybiyaan 3 qaybood: qaybta falka fulinaysa, qaybta ilaalinta iyo la socodka dhaqdhaqaaqa goobta u xil saaran, iyo qaybta farsamada iyo qorshaha oo kooxda ugu horeyn meesha gaaraysa. abbaare 8 fiidnimo isla maalintaasi waxaa hotelka soo gaaray hadafkii la sugayay oo ahaa maxamed mabxuux, waxaana la dilay kadib 15 daqiiqo oo keliya markii uu hotelka yimid, iyadoo 2 nin ay si degdeg ah uga dabagaleen qolkiisa kadibna ciijiyeen oo neefsiga ku caburiyeen. dilayaashu waxay meydkiisa agdhigeen quraarad furan oo ay ku jirto dawada wadna xanuunka loo isticmaalo si ay u majara habaabiyaan dadka, iyagoo qaab farsamaysan silsilad gudaha kaga xidhay qolkiisa, dhanka kalena ka sudhay warqad ay ku qoran tahay fadlan buuqa ka yare. muddo 10 daqiiqo ah gudahood dambiilayaashu waxay ka guureen hotelka, iyadoo kamarada qarsoodiga ay qabatay dhammaan dhaqdhaqaaqooda. muddo saacada ka bacdina dhammaan kooxdii dilayaashu
waxay ka ambabixeen magaalada Dubai iyagoo u kala duulay wadamo kala duwan oo caalamka ah halka meydka Maxamed Mabxuuxna la ogaaday muddo 16 saacadood ah ka bacdi howlgalka lagu dilay Sayid Maxamed Mabxuux oo kamid ah mas'uuliyiinta garabka militariga ururka Xamaas ee reer Falastiin oo kamid ah howlgalladii qarsoodiga ay sirdoonka Israa'iiliintu ka fuliyeen meelo ka baxsan dalkooda ayaa inkastoo ay gaadheen hadafkiisa haddana waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa howlgal ay ku galeen khaladaad kala duwan haddii ay tahay dalalka ay baasaboorradooda adeegsadeen ama nooca dili ay sameeyeen oo ah inay ciijiyeen Masar Mabxuux ilaa uu ka dhimanayay qaladaadka ay kooxda falka geysatay gashay waxaa ka mid ahaa in ay yaraysteen haykalka dembi baadhiseed ee booliska dalkan waxay aaminsanaayeen inay sababo dabiici ah loo malayn doono geerida Masar Mabxuux may filayn in baasaboorrada la baadhi doono oo la heli doono waxay ahaayeen kuwo iska hormarayay oo aan dareen ka qabin kamarada qarsoodiga ah waxay ahaayeen koox aan khibrad dheeraad ah u lahayn hawsha loo diray sawirradooda ayaa meel kasta laga arkayay waxay halis u ahaayeen wax kasta oo howlgalka laftigiisu ku fashilmi karayay isu soo bax lagu dhalacaynayo dilka Israa'iil ay u geysatay Maxamed Mabxuux oo lagu qabtay marinka Qasa ayaa waxaa si toos ah hadal uga jeediyay Khalid Mashcal oo ah gudoomiyaha xafiiska siyaasadda ururka Xamaas isagoo ku sugan magaalada Dimashq الحشود من دمشق لديهم هذه hadiyo jeer waxay isu dayaan in ay fuliyaan howlgal qarsoodi ah oo aan raad reebin laakiin inkastoo aanu khasaarnay mujaahid weyn Maxamed Mabxuux haddana sirdoonka Israa'iil waxa raacday fashilaad foolxun marka la ogaaday shakhsiyaadka fuliyay dilka iyo inay isticmaaleen dalal kale baasaboorradooda oo la fooji gareeyay ولكن فضحت إسرائيل كما فضحت waxyaabaha daliisha u ah in Israa'iil ay soo abaabushay isla markaana fulisay dilkii Masar Mabxuux lagu dilay dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaa ka mid ah in badanaa dadka baasaboorradooda la foojiriyay ay ku sugan yihiin gudaha Israa'iil tusaale ahaan mid ka mid ah dambiilayaasha uu sitay baasaboorka Jarmalka ah ee magaciisu yahay Michael Budenhaber waxaa la ogaaday in baasaboorka uu leeyahay ninkan oo ah kayskale magacaasi isla markaana ah nin waayeel oo ku nool magaalada Tel Aviv asal ahaan ka soo jeeda dalka Jarmalka xukuumadda Britain oo ay baasaboorradooda la foojiriyay siteen 13 ka mid ah kooxda dilka geysatay ayaa baaritaan ay samaysay ka bacdi waxay ogaatay in hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ay ka dambeysay foojiriyeenta baasaboorrada Britishka ay siteen dad haysta dhalashada boqortooyada oo ku sugan gudaha dalka Israa'iil taasina waxay keentay in xukuumadda Britain ay dalkeeda ka cayriso diblomaasi Israa'iili oo ku sugnaa magaalada London inkastoo tallaabadaasi aan ahayn mid ku filayd inay dejiso cadhadii ay Falastiiniyiintu ka qaadeen dilkii Maxamed Mabxuux oo dalalkii reer Yurub ee baasaboorradooda la isticmaalay هذه جريمة في العرف الإنساني وفي العرف الأخلاقي وفي عرف القانون الدولي jawaabta aanu ka bixinayna iyo heerka ay gaarsiisnaan doonto waa mid qorshaynteeda lagu jiro tan waa fal dembiyeed weyn oo ka baxsan dhammaan dareennada akhlaaqeed iyo qaynuunka caalamiga ah waxaanay u dhigantaa mid ka talowsan xadka caalamiga ah iyo ka qaaradaba maanta waxay ku xadgudbayaan Falastiiniyiinta iyo dad Carab ah oo kaliya laakiin maalin kale waxaa dhici karta inay ku xadgudbaan dad reer Yurub iyo Ameerikaan ah si kastaba haatee khaladaadkii ay galeen kooxda faldambiyeedka geysatay ayaa ah sababta fashilisay dhacdada isla markaana indhaha caalamka ugu soo jeedisay hay'adda Mossad oo wixii xilligaa ka dambeeyay calaamad su'aal la saaray dhaqdhaqaaqeeda ay ka samaynayso meelo ka baxsan xuduudaheeda